dhaawacmay dhaawacoodu inteedu la eg yahay dadka dhaawac gaaray waxa la sheegay qaarkood marka inay dhaawac halis leh marka uu gaaray oo danta ay qasbaysa qaarkood in loo qaadaba hospitaalka weyn oo ku yaala magaalada Mandera marka dadkan uu soo adeegsanayeen maartay salaaxad kala duwan qaarkood dhagaxyo isticmaalayeen qaarkood maartay garuum isticmaalayeen qaarkood maartay ula ay wateen isticmaalayeen marka wararka waxay sheegayaan dad badan in meesha ay maartay dhaawac ku gaaray oo qaarkood ay dhaawac maartay qatar naftooda wax u dhimi karo baska sug soo dhacay oo khadka telefoonka ugu warramayay isagoo jooga magaalada Nairobi dagaalkaasi haatan wuu joogsaday markii ay ciidamada booliisku soo dhexgaleen taladayna kana xaggaas iyo dalka Turkiga ay u yaran leexanay dadka dalka Turkigu waxa ay saaka aroortii u dareereen goobaha ay yaaleen sanaaduuqda codka lagu rido iyagoo soo dooranaya baarlamaan cusub waxa markaas muran ka soo xagga siyaasadda ay ka taagan yahay doorka ay diinta islaamku ku leedahay doorashadaas dowladda Turkigu waxa ay goosatay in ay doorashadaasi ku dhawaaqdo oo dalka oo dhan ay ka dhacaan markii ciidamada qalabka sida ee dalka Turkigu ay diideen in wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkigu Abdullah Gül loo doorto oo uu noqdo madaxweynaha dalka Turkiga arrinta doorashadaas waxa warbixinta nooga soo diray Maxamed Abubakar Sheekh Xasan Maxamed Deeq oo magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga jooga codaynta doorashada xubnaha baarlamaanka waddanka Turkiga ayaa saakay waxay ka bilaabatay guud ahaan gobolada waddanka Turkiga gobolada ku yaala bariga dalka Turkiga ayaa waxay shacabka u dareereen in ay codeeyaan saacadu markii ay ahayd 6 aroornimo halka gobolada kale ee ku yaala galbeedka dalkan ay u dareereen goobaha codaynta saacadu markii ay ahayd 7 aroornimo guud ahaan doorashadan lagu dooranayo xubnaha baarlamaanka Turkiga ayaa waxaa codayn doona 42 milyan oo ruux oo ka tirsan shacabka Turkiga oo tiradoodu dhan tahay 74 milyan oo ruux waxaana ay dooran doonaan 550 xubnaha kuraasta baarlamaanka iyadoo ay u sharaxan yihiin 7385 qofood oo is soo sharaxay doorashadan ayaa waxaa ku tartamaya 14 xisbi siyaasi oo ka dhisan dalka Turkiga oo bilihii la soo dhaafayna uu ka dhaxeeyay loolan xoogan oo doorashada baarlamaanka la xiriirta shacabka Turkiga ayaa saakay waxaa la arkayay iyagoo u dareeraya isla markaana safaf dhaadheer ugu jira goobaha codaynta oo loo diyaariyay ilaa 158,000 oo goobood oo u kala qaybsan dhammaan gobolada Turkiga hadba sida ay u kala dad badan yihiin waxaana lagu wadaa in la soo afjaro codayntan galabta saacadu marka ay tahay 5 galabnimo iyadoo saacado kadibna la filayo inay soo baxaan natiijooyinka ugu horeeya ee codayntan dadka indhaindheeya siyaasadda Turkiga ayaa waxay saadaalinayaan in ay kuraasta baarlamaanka Turkiga ay ku soo bixi doonaan kaliya 3 xisbi ee kala ah Akbarti oo haatan talada waddanka haya iyo JHP oo ah mucaaradka ugu weyn ee ka soo horjeeda Akbarti iyo xisbiga kale ee garabka midig ee Mahaba xisbiga JHP ayaa lagu wadaa inuu codadka ugu badan ka helo magaalooyinka Ankara iyo Izmir oo ah magaalo dalxiis halka Akbartina ay u codeyn doonaan dhammaan gobolada kale ee Turkiga xisbiga talada waddanka haya ee Akbarti ayaa lagu wadaa in ay heli doonaan codeyntan 40% kuraasta baarlamaanka dalka Turkiga halka labada xisbi ee kale ee ku soo xiga ay heli doonaan sida la saadaalinayo 10% kuraasta xubnaha baarlamaanka Turkiga waxaana aad u yar rajada murashaxiinta iskood isu soo sharaxay in ay ku soo baxaan xubnaha baarlamaanka waddanka Turkiga Maxamed Abubakar Sheekh Xasan Maxamed Deeq Ankara waxa inoo soo socota qaybtii wargeysyada marka horese waa baafintii waana tan baafinta galabta waxaanu si